بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن ميل كستا iyo goob kasta oo dabadayla joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News qodobada daawan doontaan kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah wadanka Australia waxa laga soo sheegayaa oo ay saynisyahannadu sheegayaan in wax iftiimaya oo hawada sare lagu arkay kana yaabiye cirbixiyeennada xiisadda Ruushka iyo Ukraine Washington ayaa dirtay jawaabteeda dalab ay soo gudbisay Moscow Shiinuhuna waxa uu ku booriyay in laga fogaado xiisadda si kordhaysa cudurka COVID-19 oo markan Omicron isku bedelay Ingiriisku waxa uu sameeyaa qorshe uu ku yaraynayo cudurkan marka loo eego hoos u dhaca Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna riday laba gantaal oo balastiga tuwaas oo markan ku khasbayeen ay dalalka caalamku ka falceliyaan qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ku jirto maxay ka faa'iiday Somaliland doodii baarlamaanka UK ee ku saabsaneed qadiyadda aqoonsiga ee Jamhuuriyadda Somaliland oo warbixinada ka hayno ayaad warka ku daawan doontaan imkana ku soo dhawaada warkii oo fidsan nuxurka doodii baarlamaanka Ingiriiska ay ka yeesheen aqoonsiga Somaliland ee toddobaadkii hore ka qabsoontay aqalka baarlamaanka UK ee House of Commons xildhibaanadii ka soo qayb galay doodii lagaga hadlayay aqoonsiga Somaliland ee baarlamaanka Ingiriisku horgeeyay xildhibaana Gavin Williamson ayaa dawladda Ingiriiska u soo jeediyay inay Somaliland aqoonsato xildhibaanada ayaa si weyn isugu raacay in loo baahan yahay dawladda Ingiriisku ay hoggaanka u qabato qadiyadda aqoonsiga Somaliland oo iyadu qaado tallaabada ugu horeysa ee aqoonsiga Somaliland xildhibaanada ayaa soo bandhigay sababaha dawladda Ingiriisku tahay inay aqoonsi u siiso Somaliland xilligan waxaana ay sheegeen inay Somaliland tahay saaxiib qadiimi oo ay dawladda Ingiriisku leedahay iyagoo sheegay in dadka reer Somaliland ay ka garab dagaalameen ciidamada Ingiriiska xilligii maxmiyadda isla markaasina loo baahan yahay in Ingiriisku maanta uu difaaco Somaliland waxay sheegeen Somaliland ay tahay astaanta dimuqraadiyadeed iyo dawlad wanaag oo ka dhaxifaysa gobol ay halkeeyeen argagixiso dagaal isla markaasina aan laga qiimeyn dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxay sheegeen in aan loo baahnayn in Somaliland sanad guuradeeda afartanaad ay u dabaaldegto aqoonsi la'aan haddaba nuxurka dooda markaynu intaasi kaga imaadno waxa doodan faraqeeyay isla markaasina iftiimiyay Somaliland waxa ay uga dhigan tahay Professor Ida Ali Salaan oo fadhigiisu yahay magaalada Cardiff ee dalka UK ama Ingiriiska professorka ayaa kamid ahaa aqoon-yahanka reer Somaliland inta badan oo leeyahay ictiraafka Somaliland waxaana waraysi siiyay TV-ga dawladda Somaliland ama telefishinka qaranka Somaliland waran waxa uu sharaxay dooda oo qaabka ay u dhacday iyo waxa ay ka tarayso aqoonsi la'aanta Jamhuuriyadda Somaliland oo 30 sano jirtay waxaana uu yiri waxa weeyaan doodan ka dhacday salaasadii hore baarlamaanka UK waxa weeyaan dood aad iyo aad qiimo leh weeye sababtu waxa weeyaan waxa ka soo qayb galay niman yani muhiima oo maaragtay member of parliament ka marka Gavin Williamson oo markii hore isagu ahaa wasiirkii difaaca ee Somaliland 2018 tagay markii dambana ahaa education-ka ayaa arrinka hogaaminayay oo watay oo table-kana soo dhigay baarlamaanka waxa ku jiray rag kale fara badan oo qiimo leh oo xagga Labour-ka iyo xagga magaranaysa Conservative-ka ka socday waana labada party ee ugu waaweyn weeye marka arrinkan waxa ka soo qayb galay ilaa 21 mudane oo qiimo leh marka arrinka uu muhiimka ku yahay waxa weeye Somaliland markii ay 19 gobonimada qaadatay ilaa waqtiga waxay Somaliland iyo shacabka Somaliland iyo diaspora Somaliland bay u dadaalayeen iyo MPyada aad inuu maaragtay hawsheena waday Alan Michael uu kamid yahay waxay ku dadaalayeen ictiraafka Somaliland marka waxa weeyaan qadiyadii waxay noqotay inay dayacadkaatay sida wada ogay oo ahayd oo arrinkaasina uu bilaabmay xaqiiqdii 2012 shirkii weynaa Cameron magaranaysa Prime Ministerkii UK ku qabtay London ay isku bedeleen oo arrinku noqday waa inay Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan oo arrintan ka heshiiyeen arrinka ayaa dib inoo dhigay waanaynu ognay dee sababo waxay ahaayeen inagoo taagelin inagoo eegayna muhiimka u kale lahaa waxa isbedelay ujeedadii caynka ahayd ayaa baarlamaanka UK u bedelay arrinkii waxay soo celiyeen siday arrimuhu ahaan jireen oo ah in xiriir toos ah Somaliland iyo UK uu ka dhaxeeyo in Somaliland ay ahayd dal madax bannaan oo magaranaysa 1960 ka qaatay gobonimada ee UK waxay aad iyo aad u saareen culayska
in aan Somaliland aanay dhici karayn in la yidhaahdo Soomaaliya ha wada hadlaan taas oo yidhaahdeen wax ka suurtoobaya ma jiraan Somalilandna iyo dadka Somalilandna xaq looguma laha marka waa inay dowladda Ingiriisku ay toos ay u ictiraaftaa waayo ajendaha meesha la soo dhigay inuu ajendu wuxuu ahaa dowladda UK inay ictiraafto dowladda Somaliland amba Somaliland inay ictiraafto arinku saas marka tiiba laga dooday ka hor timid ma jirto 22 ka qayb galay rag badan oo kala apology bixiyay way jiraan waayo in fact wuxuu ahaa short notice no way ahayd waqtigii la siiyay isloodkii la siiyay waqti yar dambe ahaa laakiin number amal laba filayn oo 30 ayaa ka soo qayb كوبي لا تنتيبا وحيسكو راعين إن سوماليلاند إن توس لو اعترافو أو يوكا يعترافو إن سوماليلاند حقو لهذي فالكو قلب ستاي ديمقراسية كو إلا كوبي ساقاش في سعود إن يكو قلب ستاي استراتيجية سوماليلاند أي فتاب إن يكو قلب ستاي حرير كا وطودر دير أي لله هاي يوكا تاسو أي سي عب وشيغين أي dagaalkii labaad intiiba way nagala qaybtay ayadoona faashiiska lala dagaalamayo dee faashiiskana waynu garanayna oo dee talyaanigii way ahaayeen hadda may fahamti marka arrinkaa waxay caddeeyeen in dadka reer Somaliland ay ka qayb galeen dagaalkaas waanaynu wada ogna oo dee Burma yaa xoreeyey Jabaaniiska ayaa ka saaray Burma kuuriyada waqooyi ayaa maanta oo khamiisa waxay riday 2 gantaal oo nooca ridada gaaban ah taasoo cambaaraysay Mareykanku haddii warkan si rasmi ah loo xaqiijiyo tan waxay noqonaysaa tijaabadii lixaad ee gantaalada uu sameeyo dalkan awoodda u leh nukliyeerka tan iyo bilowgii sanadkan qaramada midoobay waxay ka mamnuucday kuuriyada waqooyi inay samayso tijaabooyinka hubka balaastiga iyo hubka nukliyeerka balse kuuriyada waqooyi waxa ay difaacday tijaabadan qayb ka mid ah xaq ay u leedahay inay istifaacdo horaantii sanadkan kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal cusub oo balaastiga kaasoo loo yaqaan hypersonic oo ilaalinaya hogaamiyaha dalkaasi su'aashan ay aad caalamku isku weydiinayaan waa maxay sababta waqooyiga Kuuriya ama Kuuriyada waqooyi ay bilowday tijaabooyin taxana oo gantaalaan caadi ahayna Ingiriiska ayaa dib ugu laabtay fulinta qorshe asaasiga ah ee dejisay bilowga cudurka corona kadib markii ay dhawaan qasabtay in la soo rogo xanibaado badan oo la xiriira faafitaanka cudurka Omicron qorshahan ay dawladda Ingiriisku samaysay ayaa waxa kamid ah in la sii wado bixinta talaalada xoojinta si looga hortago fayraska iyadoo hoos u dhigista xajmiga khatartu uu matalo Omicron arrintan waxay gacan ka geysan doontaa caawinta dawladda si loo maareeyo faafitaanka fayraskan kaas oo aan la yareyn karin ku dhawaaqista ayaa ku soo beegmay xilli Khamiistii la soo dhaafay la soo saaray awaamiir u ogolaanaya in si tartiib loogu soo laabto goobaha shaqada laga bilaabo Maarch 2022 maadaama xirashada maaskaruhu aanay si ahaan doonin mid qasaba iyo kaararka cadeynaya in dadka haysta ay xor ka yihiin fayraska arrintaas oo la sheegay in gabi ahaanba la joojin doono kaasoo ku soo celiyay xeerkii hore loo gaaray bishii July sanadkii 2021 dawladda Ingiriiska ayaa bilowga fududeynta xanibaadahan u sababaysay guusha laga gaaray ololaha talaalka iyo horumarka cilmi baarista ee la xiriira daaweynta cudurka corona laakiin dukaamada qaar ayaa sheegaya inay sii wadi doonaan inay aad ugu baahan yihiin dadka wax ka iibsanaya ay xidhaan maaskaro tirada dhimashada corona ee boqortooyada midowga Ingiriiska ayaa gaadhay 150,000 qof taasoo ka dhigtay kaalinta 7aad ee adduunka waxaana ay ku khasabtay taasiir ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska Boris Johnson bishii December 2021 inuu soo rogo qorshaha B taasoo ka cadhaysiisay qaar ka mid ah ku-xigeenadiisa waxaana uu hadda leeyahay sababaha siyaasadeed ee xoog badan awgeed waynu ka takhalusi doonaa Johnson waxa uu hadda wajahayaa dhibaatadii ugu weyneed ee xirfadiisa iyadoo booliskiisu ay baadhayaan eedeymaha in xaflada lagu qabtay aqalka waddankaasi Ingiriiska Mareykanka ayaa ka soo horjeestay rabitaanka Ruushka ah in Ukraine ay ka hortagto inay ku biirto NATO iyadoo laga digayo in Moscow ay qorsheynayso inay weerarto deriskeeda Washington ayaa soo saartay jawaabteeda rasmiga ah ee dalabaadka Ruushka ee ku saabsan qararasaha Ukraine hooyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in dalkiisu soo diray soo jeedin bandhigaysa dariiqa diblomaasiyadeed oo halis ah ay tahay Ruushka la doorto isagoo intaasi ku daray in Washington ay isla waqtigaas ka shaqaynayso sidii loo xoojin lahaa difaaca militari ee waddanka Ukraine isagoo ka hadlay jawaabta Mareykanka Ruushka waxa uu ka digay walaacii ugu weynaa ee dhanka ammaanka ee aan abid
laga hadlin waxaana uu ku tilmaamay inay jirto fursad lagu sii wadi karo wadahadalka. Beijing ayaa waxay aad u boorisay dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan xiisadda sii kordhaysa. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa isaguna sheegay in walaaca ammaanka ay ka qabaan in Moscow ay tahay waxa ay sheegaysaa in si dhab ah loo qaato khatar adduunka ku soo wajahan. Ruushka ayaa soo saaray liis qoraal ah oo ay ku jiraan welwel uu ka qabo ballaarinta militariga NATO iyo arrimaha amniga ee la xiriira tallaabadan. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in toddobaadkan ay dirtay 3 markab oo sida caawimo kuwaasoo militari ah oo ay ku jiraan gantaalaha Jellyfin iyo hubka ka hortagga hubka iyo sidoo kale 100 tan oo rasaas oo qalab ah. Blinken ayaa diiday jiritaanka wax khilaaf ah ama kala duwanaansho fikradeed oo u dhexeeya Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub. Waxa uu sheegay in NATO ay diyaarinayso hindise u gaar ah oo si buuxda u soo jeedinaya in la ilaaliyo Ukraine. Sahanada Australia waxay sheegeen inay heleen shay ku wareegaya hawada sare oo aan la garanayn kaasoo ay sheegeen inuu yahay waxaan hore loo arkin. Shaygan duulaya waxa ogaaday arday jaamacadeed isagoo sheegay inuu sii daayo qulqul weyn oo tamarta raadiyaha 18 daqiiqo oo kasta. Walxaha tamarta ka abuurantay inta badan waa la diiwaan geliyaa wadamada caalamka, balse cilmi-baarayaashu waxay sheegeen tamarta 1 daqiiqo oo dhan ay tahay mid aan caadi ahayn. koox khabaraa ayaa ka shaqaynaya sidii ay ogaan lahaayeen shaygan cusub. Shaygan waxaa markii ugu horeysay helay arday ka tirsan jaamacadda Gorton Horn Trust oo ku taala gobol ka tirsan galbeedka Australia ee loo yaqaano Morrison Welfare Area, isagoo isticmaalayay telescope iyo sidoo kale farsamo cusub oo sameeyay. Ordihati waxa uu ka mid yahay koox cilmiga xidigaha ku takhasusay oo hogaaminaya Dr. Natasha Heidi Walker oo ka socda jaamacadda Gorton ee xarunta cilmi baarista astronomy ee cilmiga xidigaha. Taasi gebi ahaanba waxay ahayd mid lama filaan ah. waxa ay nooc cusub oo ay cilbixiyeenadu arkeen sababtoo ah ma jirin wax nooca oo hore loo arkay. waxa shidmaya madamaya ee koonkan ku jira kuma cusba cilbixiyeenaduna waxaan ay ogaadeen, balse shay daarmaya daqiiqad kastaba ayaan arkay, runtii waan uga yaabiyay ayuu yiri ardaygan wax ka bartay jaamacadaasi. aragtida ku xeeran waxa uu noqon karo shaygan la garan lahaayay ee lagu arkay dalka Australia ay khubaradu ku sheegeen inuu noqon karo burburka xidig soo dhacay, balse arrintaasi waxay u baahan tahay baaritaan qoto dheer oo lagu sameeyo.